Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan saaxiibada qiimaha badan ee ku xiran channelka Samna Kasta Official. Fadlan haddii ay tahay markuu horeysa channelka soo booqato subscribe noo saar. Kambaleel kala furo si markasta ay kuu soo gaaraan muuqaalada xiisaha badan halkan soo dhigno. Haddii aad hore oo joogtana muuqaal ka leeg noo saar sidoo kalena sii share gare si uu muuqaal kuu gaaro saaxiibo badan. Waana ku mahadsan tahay. Barnaamijka maanta waxaa ku soo qaadanaynaa filimka lagu magacaabo Farisu oo maanta laga soo bandhigay goosgoos xiiso badan. filimkan waxaa hogaamiyay Thalaba TV sidoo kale filimka tirashakooda wax ku metelayso xigta lagu magacaabo Rashmika Mandana oo markaa ku jira waqtigeeda ugu fiican maadaama filimkeedu ugu dambeeyay Pushpa markaa uu noqday film all time blockbuster haddana la sugayo qaybta labaad daawan doonto dabiiqada sanadka 2023 oo sida shaaca ka qaadeen tiimka filimkaas kala ugu horeeyo Allu Arjun sidoo kale hadii uu soo noqdo filimkan Faris waa film aad u xiiso badan waxaana daawan doona 12 January ayaa filimka teatro loo saari doona xitigan waxaan directorka ninka lagu magacaabo Famsi halka muusikada qoraacay Thaman waana muusikista ugu caansan marka la joogo fanka koonfur Hindiya filimkan wuxuu ka dhigi doonaa film classic heesaha laga qaraaco heeseer kale marka laga soo bandhigay YouTube-ka waxaana soo bandhigtay shirkadda lagu magacaabo T-Series dadka YouTube-kan heesahaas waxay ka noqdeen heesa blockbuster haddana waxaa la sugayaa filimkan 12 January markaa dhigo wacdar weyn sidoo kale intaanu markaa dhankaasi oo filimkan waxa directorka producerka lagu magacaabo Dilraju ayaa filimkan ka qayb qaadanaya productionka sidoo kale filimkan cadlada qayb shirkadda lagu magacaabo Rajat Movies waana shirkadda inta badan ka qaata cajalada qiimaynta marka uu kala qaybisay shanamooyinka sidoo kale filimkan maanta ayaa isku waxa laga soo bandhigay goosgoos xiiso badan aad ayaa loo amaanay maadaama filimkan ku dhawaad marka uu yahay 1 saac marka filimkan uu gaaray ku dhawaad 900,000 oo like taasoo ka dhigtay scoorkii marka uu dhigay filimkii Thunaifu inuu marka ku soo gabagabay aan iraahday hal saacadood taasoo ka dhigtay filimkii Thunaifu inuu marka hawada ku cun doono filimkan Farisu oo marka hogaamiyay Thalaba TV sidoo kale dhanka feeska hadda wax maraya ku dhawaad 5 milyan oo fees taasoo ka dhigtay in marka 24 saac kadib marka aan fiiri doono feeska marka inuu gaari doono feeska marka Thunaifu oo marka maraya ku dhawaad 25 milyan oo fees ay maraya one day filimka Farisuna 1 hour ayuu wuxuu yaalaa marka barta YouTube-kan farta loo yaqaan TV wuxuuna hadda maraya ku dhawaad 5 milyan halka leegto maraya 900,000 oo like halka filimka Farisu aan raahay Thunaifu one day marka uu gaaray 1 milyan like taasoo ka dhigtay 100,000 marka inay kaga dhimatay marka soo jabiyay scoorka leegta oo marka qaada filimka Thunaifu sidoo kale filimkan waxa aad u garab istaagay taageerayaasha marka uu leeyahay xidiga lagu magacaabo Thalaba TV ayaa taageerayaashiisa marka filimka garab istaagay sidoo kale filimka qorshe wuxuu ahaa in marka 1 January marka filimka laga soo bandhigo talada xiiso badan balse tiimka filimka 3 maalin ay dib u dhaceen maanta Arbacada marka 4 January filimka wax laga soo bandhigay goosgoos xiiso badan sidoo kale filimka jilayaal aad u fara badan ka soo muuqan doona waxaana kamid ah ninka lagu magacaabo Prakash Raj iyo sidoo kale xidiga lagu magacaabo Sham Sarakumar iyo gabadha lagu magacaabo Jaya Sudha ayaa filimka door adag ka qaadan doonta oo marka filimkan halboolo waa sidoo kale filimkan Rashmika Mandana filimka tirashakooda ay ku metelaysaa sidoo kale filimka goosgooska aad u xiiso badan aad ayaa loo amaanay waxaana la filim doonaa feestada loo yaqaan Sakratiya marka dhankaas taamin laga dabaaldego inuu marka filimka wacdara ka dhigi doono filimka Thunaifu oo marka ka tilaabsan doono sidoo kale filimka labada film waxay ka kala hadlayaan sheekooyin kala duwan taasoo ka dhigaysa labada film in marka iska garab gadmaan oo marka labada dhinac marka noqdaan filmo marka guuleysta oo marka blockbuster noqda hadii aan hormo filimka Thunaifu waa filimada hore loo arki jiray oo marka la geysan jiray dhaca ama xatooyada sidoo kale filimkan Farisuna waa isla marka filimada hore loo arki jiray marka familiga iyo qoyska ama commercial family ayaa filimka loo dhigay hab ganacsi taasoo ka dhiganta inta badan inay jecel yihiin filimada Hindida inta badan inay jecel yihiin filimada loo yaqaan family commercialka taasoo ka caawin karta filimka lagu magacaabo Farisu inuu markaa noqdo filimka markaas lacag ugu badan ka soo xidhan dhankaas Tamiladu sanadka cusub maadaama horaanta sanadkan filimka Farisu ku bilaabanayo fanka loo yaqaan Tamil iyo sidoo kale filimka Thunaifu markaa hogaamiyay ka yahay Thala Ajit Kumar asxaabta labada film isba bandhigo intaas ay ku soo gabagabeynayna wixii ka soo korana muuqaalada xigaan ku soo gubin doona iyo macluumaadka marka teatrada saaro hal toddobaad kadib ama Khamiista foodan ugu soo haysa ayaa labada film teatrada la saari doona waxaan ku soo gubin doonaa macluumaadka sidoo kale maalmahooda koowaad marka lacagaha laga helay iyo teatrada marka si loogu kala qaybiyay asxaabta hadii aad wali muuqaalka leeg saarin leeg noo saar saaxiibada qiimaha badan haddana wax soo qaadanayna update ku saabsan filimka lagu magacaabo Pathaan marka hogaamiyay ka Shah Rukh Khan filimkan wax ku weelasay xigta lagu magacaabo Deepika Padukone halka John Abraham filimkan ku metelay awood badan sidoo kale filimkan waxa muuqaal martiya kula xidiga lagu magacaabo Salman Khan ama meesarka caanka fanka Hindiya sidoo kale asxaabta filimkan goosgooskiisa waxa la soo bandhigay 10 January
ama 6 bari kadib maalinta Talaadada ayaa filimka waxa laga soo bandhigi doonaa goosgoos xiiso badan. Filimkan waxaa agaasimay ninka lagu magacaabo Stad Allen oo markaa uu agaasimay filimada classic ah War iyo sidoo kale Banga Banga oo markaa Harriet Roshan hogaamiye ka ah. haddana Bathan oo markaa qayb ka ahaan doona oo filimka isaga ayaa agaasimay. sidoo kale shirkadda lagu magacaabo Saj Films ayaa filimka maalgelinayso. sidoo kale filimka Bathan muddooyinka ugu dambeeyay waxaa qolyaha Hinduga ayaa filimkan waxa ku hayaan caqabad ka dhan filimka lagu magacaabo Bathan in markaa laga daawan doono Hindi iyo idil, maadaama filimkan ay sheegeen markaa inuu ku cayaaro dhaqanka Hinduga tiimka filimkan iskale ugu horeeya Shah Rukh Khan ay qolyaha markaa Hinduga ku eedeynayaan inuu filimkan markaa laga daawan doono in markaas Hindiya. sidoo kale qolyaha markaa filimka faafreeba ee markaa Hindiya ugu sareeya oo markaa loo yaqaan ama control filimada markaa waxyaabaha xun markaa ka saara ayaa filimkan maalmihii dhow markaa ugu dambeeyay markaas iska diiday in markaa filimkan la siiyo shahaadada markaa uu lagu daawan lahaa ama shahaadada loo yaqaan Universal Adult ayaa filimkan loo diiday. sidoo kale filimka waxay ninkaas tiimka iska Star Films markaa u geeyay trailerka wana ka soo ansixisay shirkadda markaa ama tiim qolyaha filimada faafreeba. waxaa shaac laga qaaday filimka 10 January markaa filimkan la saari doono aaniraha trailerkiisa markaa la soo bandhigi doono, taasoo markaa update ku saabsan filimka Bathan oo markaa aad u xiiso badan trailerkiisa ama goosgoyskiisa markaa la soo fasaxay, taasoo u badan tahay filimka inuu soo baaqan doono markaa la daawan doono 9 January. sidoo kale filimkan maalmihii ugu dambeysay waxaa dhex maraya in filimkan loo guuri doono 9 February, balse tiimka filimkan waxay shaaca ka qaadeen markaa filimkan hal bil dib loo dhigi doono oo markaa la daawan doono xilliga rasmiga filimkan loo asteeyay oo markaa 9 January. waxaana fasax markaa loo asteeyay markaa Republic of India filimkan inay ka faa'iideystaan oo markaa ku dhawaad 3 maalin fasax markaa ay jiraan in markaa tiimka filimkan iskale ka faa'iideystaan, taasoo ka dhigantay filimkan inuu markaa ganacsi ku filan markaa sameyn doono maalmaha markaa fasax uu jiro. sababta intaas ayaa ka cusub filimka loo yaqaan Bathan oo markaa hogaamiye ka yahay SRK ayaa ku weyso xidigta loo magacaabo Deepika Padukone. John Abraham filimkan ku matalay laadar awood badan waxa ka soo kordhan waxaan ku soo gubin doonaa muuqaaladan xiga. ugu dambeyntii saaxiibada qiimaha badan wax la fiirin doona aktarka lagu magacaabo Rafi Teja oo markaa sanadka ku soo gabagaysta filimka lagu magacaabo Dhamaka kaasoo noqday blockbuster weyn, halka horaantii sanadkan uu ku bilaawday filimka lagu magacaabo Khiladi kaasoo horaantii sanadkan noqday filim flop oo markaa disaster. sidoo kale filimkii bishii July wuxuu ku xijiyay filimkiisa lagu magacaabo Ramaro Unditi kaasna wuxuu ka noqday filim flop. haddii aan soo noqono filimkiisa lagu magacaabo Dhamaka oo 3 December filimka tiyaatar loo saaray, filimkan hadda wuxuu sii maraya ku dhawaad 70 karoor, taasoo ka dhigan tahay filimkan in markaa uu cimrihaantiisa markaa ku istaagi doono 80 karoor ilaa Khamiista soo socota. filimkan oo markaa bish ku eegta 12 January tiyaatarada masraxa sii saaraan doona, waxaana soo bixi doona filimka lagu magacaabo Little Firaya. filimkaasna wuxuu ku leeyahay muuqaal martiya oo markaa filimka shaac laga qaaday ku dhawaad 30 daqiiqo nus saac filimka markaa muuqaal martiya ku leeyahay, taasoo ka dhigan tahay filimka kala bar markaa filimka la qaybsan doono xidigga lagu magacaabo Chiranjeevi ayaa filimka hogaamiye ka Rafi Teja. filimkan wuxuu ka qaadan doonaa door adag oo filimka ku leeyahay. sidoo kale filimka loo badin doona isbatoor markaa filimkan uu ku matali doono waa sidii heesaha qaar filimkan kaga soo muuqdo Rafi Teja isagoo markaa baaskiilada ugu xiran tahay dhanka suunka, taasoo ka dhigan tahay filimka inuu markaa askari ku matalayo ayna isqaban doonaan xidigga lagu magacaabo Rafi Teja aaniraahday Chiranjeevi. sidoo kale xidiggan waxa uu diyaarsan filimkiisa lagu magacaabo Fasurana. filimka qorshe wuxuu yahay markaa la daawado bisha Abriil oo markaa foodan ugu soo haysa ayaa filimkan sida shaac laga qaaday daawan doona, waana filim xiiso badan markaa Rafi Teja ku soo laaban doono sanadka 2023 uu ku bilaaban doono filimka lagu magacaabo Fasurana, halka filimka Walter Firaya markaa horaanta sanadkan January markaa la daawan doona uu markaa muuqaal martiyo ku leeyahay. sidoo kale filimka Big Movie waxa uu diyaarsan filimka lagu magacaabo Tiger Nagaswarar aaniraahday Nagaswarar filimkaas oo aad u xiiso badan oo markaa filim baan India movie. sidoo kale filimka qorshihiisu wuxuu waday ku dhawaad 1 sano ayaa filimkan markaa duubistiisa la waday. sidoo kale xidiggan filimka Tiger markaa intuu duubista ku wada wax ka soo gaaray dhaawacyo aad u culus oo markaa dhanka garabka markaan halis fara badan filimka uu ku galay. sidoo kale filimkan wuxuu qorshu yahay markaa la daawado 6 bilood oo markaa sanadka ka harsan ama sanadka 2023 bilood ugu dambeysay ayaa filimka qorshu yahay markaa la daawado. xidiggan saddexda film ayaa u diyaarsan Walter Firaya muuqaal martiyo ku leeyahay. sidoo kale filimka lagu magacaabo Fasurana oo markaa la daawan doono Abriil 2023. sidoo kale filimka Tiger Nagaswarar oo la daawan doono sanadka inta ka harsan 6 bilood ugu dambeysay. sidoo kale xidiggan filimkiisa hadda masraxa u saarsan oo markaa tiyaatarada sare lagu magacaabo Dhamaka ee markaa xidigta lagu magacaabo Sarela filimka Tirshakwaad ku matalayso aadka loo amaanayo. sidoo kale filimka shirkadda Amri Rating filimkan waxay ku qiimeysay ku dhawaad 8.8 tobankii markaa ku qiimeysay shirkadda Amri Rating, taasoo ka dhigan tahay filimkan in markaa macaamiisha shirkadda lagu magacaabo Amri Rating filimkan in markaa aad u qiimeeyaan. sidoo kale markaas filimkan siiyaan ku dhawaad 8 xidig, taasoo ka dhigan tahay filimkan good excellent maadaama shirkadda Amri Rating filimkan qiimeeyaan dadka markaa filimka soo daawaday kadibna filimka ratingka markaa ay siiyaan markaa waxay ku qiimeeyaan, taasoo ka dhigan tahay filimkan alasan markaa inuu keenay 8 xidig. ka dhigan tahay filimkan inuu yahay filim la daawan karo excellent movies
horumarka filimka Rafiteja marka ku xarikeeyay haddana mar ay ku dhawaad 70 karoor ganacsigiisa marka loo film la filayo inuu marka soo xareeyo ku dhawaad 80 karoor inta marka ka harsan 12 January oo bilaawday Khamiis ilaa Axad marka filimkan marka ganacsi fiican sameyn doono maadaama filimkan maalinta Salaata ayaa marka Talaada maalin shaqo ahayd marka filimkan soo xareeyo 2 karoor hadii marka lagu daro Jimcaha Sabti iyo Axad filimkan soo xareeyo ku dhawaad 2 karoor bar waa hubantaan filimkan marka gaari doono ganacsigiisa world wide gross ku dhawaad 80 karoor asxaabta intaas ayaa ka cusub xidiga loo magacaabo Rafiteja ana ka soo qaadanayna filimada sanadkan 2023 diyaarsan iyo sanadka 2020 marka ku soo gabagaysta filimka loo magacaabo Dhamaka kaasoo noqday blockbuster weyn waxa ka soo korana muuqaalada waxayna ku soo gubin doonaa fadlan haddii aad muuqaalka heshay like noo saar waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.